بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دمان ددوينها الصوماليات داوانية أما إدغيسانية وحان لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت ومالنتي أقوه الرئيسي وعن لحظ لايو ددوينها الصوماليات جوغة دالك دبديسة يقوديسة انتبا وحان الدونية إنان كره دور توبيك أما دور موضوع وأن إسلاهاي ومهم ددوينها الصوماليين إني وحكا أوغادان موضوع إذا سقار كميده ووربحين إلهي هذا وحي نوقب صومي وددي عن صومرني قار كلان وحي كهدل دونان أمورا خصايا دلكا iyo meesha uu taagan yahay iyo meesha aan u socono iyo waxyaabaha jira hadii aan la yiraahdo waxaan rabaa inaan ugu horumaro aan warbixin kooban ka siiyo dadweynaha Soomaaliyeed ee daawanaya ama dhageysanaya in laga soo bilaabo maalintii la doortay 10kii bishii September ee sanadkan oo maanta laga joogo 60 iyo 5 maalmood waxaan leeyahay 60 kaas maalmood hawlo badan way noo qabsoomeen caqabado badan dabcan waa la kulanay qaar hore u sii jiray iyo qaar soo baxay intaba ayadoo lagu jiray waqti xukuumadda dhismaheedii iyo dawladda dhismaheedii intaba oo kala dhinaa oo ay wax badan ka dhinaayeen sida la socda dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed waxaan soo marnay wado dheer oo dawlad dhisidda Soomaaliya la xiriirta wadadii aan soo marnay waxay dhashay in la doorto baarlamaan 275 xildhibaan ah baarlamaankaasi inuu doorto guddoonkiisii guddoomiyihii ku xigeenadiisii kadibna baarlamaankaasi inuu doorto madaxweynihii bishii September 10keedii madaxweynuhuna markaa uu ku mashquulay inuu ka shaqeeyo soo magacaabistii prime ministerka jamhuuriyadda sida uu qorayo dastuurka qabyada ah ee jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha waxaa lagu doortay gudoomiyaha baarlamaanka waxaa lagu doortay majority cod ah oo aad u ballaaran oo garanaysaan madaxweynaha sidoo kale waxaa lagu doortay cod aad u ballaaran oo garanaysaan madaxweynuhu markuu prime ministerka soo magacaabana waxaa lagu ansixiyay cod wada jir ah ama afka qalaad lagu yiraahdo consensus ama unanimous ayaa lagu ansixiyay prime ministerkii maalintii shalay ahaydna prime ministerku wuxuu geeyay baarlamaanka xukuumaddii qaybtii ugu horeysay oo ayadana lagu ansixiyay si maxaan ku iraahdaa majority ah ama badnaansho ah intaas oo dhan waxay tilmaamayeen in guusha ugu weyn ee la gaaray maanta ay tahay dadka Soomaaliyeed ee ummaddu ay mas'uuliyadda u dhiibatay oo ugu horeeyo baarlamaankii la soo xushay oo ummaddu ay soo xulatay iyo intii ka dambeysay oo baarlamaankaas uu sameeyo dhan in ay u dhaqmeen si mas'uuliyadi ay ku jirto oo danaha dalka ay ku jiraan oo ay ka dhabeeyeen ilaa xad intii suurtagal ah dhaartii ay dalka u dhaarteen oo ahayd inay ilaalinayaan danta dalka dadka iyo diintaba wax khilaafihi muddadaasi oo ka dhaxdhacay madaxda qaranka ma jirto aad baan uga xumahay in saxaafadda qaarkeed aanay si fiican warbixin sax ah oo run aanay uga bixin amuurahaas laakiin waxaan rabaa dadweynaha Soomaaliyeed inaan u sheego maanta inta aan marayna ee 60 iyo dhowrkaas maalmood ah wax khilaaf ah oo ka dhex jira xukuumadda Soomaaliya iyo guud ahaan dawladda ma jirto hoggaanka baarlamaanka xukuumadda cusub madaxweynaha intaba wada shaqayn rasmi ah oo buuxda oo ballaaran oo kalsooni ku salaysan ayaa ka dhaxaysa markaan ku soo koobo intaas waxaan soo marnay waxyaabaha yani caqabadaha inaga hor yimid waxay ahayday dhaqaale darri dawladda ama xukuumadda haysatay oo xilligii badxiranka ah dhamaadkiisii ayaa dawladani ay xafiiska qabatay iyo wixii taxadiyaadkii ama caqabadihii weligeed soo jiri oo hore u jiro dhan way la kulantay hase yeeshee waxa soo dhan waan ka soo gudubnay xafiiskayga awaamirtii ugu horreysay ka soo baxday waxay ahayd maareynta maaliyadda yarta ah ee dalka soo gasha oo loo qaabeeyay sida ugu anfac badan ama ugu maxaan ku raada habboon ee loo isticmaali karo maaliyadda yarta ah waana lagu guuleystay waxaan nimiday ayadoo shaqaalaha dawladda iyo qaybo badan oo ciidamadeena ka mid ah muddo 5 bilood aanay mushaar qaadanin waxaan nimiday ciidamada qaybo ka mid ah oo aan muddo 3 bilood ah garaamkii ama biilkii dawladda ay ku lahayn aanan helin nasiib wanaag maanta arrintaas way dhamaatay
ciidamada 2 bilood ilaa 3 bilood qaarkood oo mushaaraad ay qaateen garaamkii iyo deyminkii lagu lahaay oo ku saabsanaay biilka ciidamadoo dhan dawladdu way bixisay shaqaalaha dawladdana sidoo kale mushaaraadkoodii waa la bixiyey maantana meel fiican ayaan taaganahay oon weli qarashaadkaas dawladda aan sii bixi karno baarlamaankeenna cusub markii ugu horreysay waxaan siinay bil mushaarkeed inkastoo bishii kale hadda ay dhammaatay ayaduna haddii alla yidhaahdo aan dhowaan dawladdu ay bixin doonto waxaas waxay ku yimaadeen mucaawano dibadda nooga timida kuma imaanin deeqo iyo donations ama contributions iyo tabarucaad ay bixiyaan dadka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku nool khaasatan ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka iyo dibaddaba ku nool iyo dakhliga yarka ah ee dawladdu soo galayay ayuu ka koobnaa qarashaadkaas aan ku bixinay howlahaas dawladdu ay qarashaadkaas dawladdu ay bixisay arrintaas waxay aaday waana ayna tahay weli arrin ididiilo leh in waxa aan haysano haddii aan beekhaansano wax badan oo kale aan ku qaban karno oo horumar kale aan ku gaari karno intaa mugaan ka soo gudbo oon halkaa kusoo koobo warbixintii oo kooban waxaa noo yaallo howlo badan oo ay tahay dawladda cusub ee Soomaaliya in ay qabato guud ahaanteed howlahaasi waxaa ugu horeeya dhamaystirka qaab dawladeedka dalka oo hadda laga magacaabay wasiiradii dhawaanna lasoo magacaabi doono wasiir dawlayaashii iyo wasiir ku-xigeenadii kadibna lagu xiliji doono maareeyaasha guddoomiyeyaasha hay-adaha dawladda ee kale kadibna lagu xijin doono agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kadibna lagu xijin doono safaaradaha iyo diplomatic corpska ama ciidamada diblomaasiyiinta ee dibadda noo jiro sidaas waxaa ku dhammaanayo haykalkii dawladnimada kadib waxaan u baahnaan doonaa waa dhamaystir iyo buuxbuuxin meelaha naga bannaan ee aan buuxino waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda horaantiisa bilaha ugu horeeya inta lagu jiro in aan haysan doono dawlad dhammaystiran oo qaybaheedii kala duwanaayo dhan ay u dhammaystiran yihiin intaas kadib waxaa noo yaallo muhiimado ay tahay dawladdu inay fuliso dabcan muhiimadahaasi xukuumadda ayaa barnaamijkeeda ay ku jiraan ay ka mid yihiin shalay ay baarlamaanka soo hordhigtay baarlamaankuna uu ansixiyey waana barnaamijka xukuumadda lagula xisaabtami doono waxqabadkiisa dabcan xukuumaddu markay fariisato shaqo bilowdo waxay la imaan doontaa qorshayaashii lagu dhaqan gelinayay barnaamijkaas baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeedna ay kula xisaabtami lahayd muhiimadaha noo yaallo ee dawladda guud ahaan inay dhaqan geliso la raba waxaa ugu horeeya horumarinta amniga ama wax ka bedelidda xaaladda amniga ee dalka amniga waa nolosha dadkeena iyo dalkeena dawladnimo dalka ka dhaqan geli karta ma jirto haddii aanan helin amni dadka Soomaaliyeed ay ku dhaqdhaqaaqi karaan dadka Soomaaliyeed ay go'aan uga gaari karaan waxa ay rabaan iyo waxa aanay rabin marka horumarinta amniga wax ka qabadka iyo hagaajinta amniga waa muhiimadda koobaad ee dabcan dawladdu ay yeelan doonto xukuumaddana barnaamijkaas ayada ay u taala oo la imaan doonto waxaa sidoo kale dawladda guud ahaan ay wax ka qaban doontaa oo arrimaha amniga la socda arrimaha ku saabsan cadaaladda amni aan cadaalad lahayn dhibaato badan ayaa ka imaan karta dhismaha cadaaladda horumarinta cadaaladda iyo hay-adaha ka shaqeeya cadaaladda waa muhiimad ayaduna ay aada iyo aad dawladda guud ahaan iyo qaybaheeda kala duwan ay ka shaqayn doonto xukuumadduna ay aada iyo aad horumarkii iyo qorshihii lagu dhaqangeli lahaa ay la imaan doonto cadaaladda iyo amniga dabcan waxaa la socdo ayagana aan ka hari karin dib u heshiisiintii iyo nabadeyntii dalka ummadda Soomaaliyeed in la nabadeeyo colaadda inay dhammaatay loo sheego loogu tago meel kastoo ay joogaan cadaawadii dadka gashayna laga bixiyo marka dib u heshiisiinta nabad dhisidda waxay ka mid tahay muhiimadaha ugu waaweyn ee dawladda aan anigu madaxda ka ahay hogaamiyaha aan ka ahay ay muhiimadda saarayso ku dhaqaaqi doonto qodobka kale oo aada iyo aada asigana muhiim ku ah oo muhiimadda kale ah wuxuu yahay arrinta ku saabsan maareynta maaliyadda dawladda ama waxa afka qalaad ugu yiraahdo public finance dalkeenna maaliyaddiisa ma badna aad ay dalkeennu waa dal qani ah khayraad badan leh fursado badan oo maaliyad badan ku heli kara leh laakiin nasiib darro duruufiyana soo mara awgood ilaa hadda aanan suurtagal aanay u noqonin in maaliyad xoog leh dawladda gacanteeda ay soo gasho taas waxaa kasii dhib badan
intii yareedoon helnayna mararka qaarkood inay sidii aan rabnay iyo wixii aan rabnay aanay noo qabanin ama noo goynin. dowladdu waxay muhiimadda saari doontaa horumarinta maareynta maaliyadda dowladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. musuqmaasuqu dhibaato badan ayuu dalkeena ku hayaa, maaliyadda kaliya ma aha laakiin dhinacyo badan oo kale uga hayaa, laakiin maaliyaddu waa meesha ay ugu xasaasi badan tahay, uguna sensitiivsan tahay. dowladdu waxay xoog saari doontaa dhismaha hay-adaha ka shaqeeya maaliyadda oo la doonayo in ay shaqadoodii loogu talagalay ay qabtaan. wasaaradda maaliyadda, bangiga dhexe, xisaabaadka guud, hanti dhowraha guud waa qaybaha dowladdu ay muhiimadda koowaad saari doonto dhismahooda iyo inay hana qaadaan oo ay noqdaan hay-ado waxtar leh, waxna qaban kara, si Soomaaliya ay uga harto magacyada xuxun ee lagu dhajiyay. la xisaabtan ma laha, shafaafiyad ma laha, maxaan ku yiraahdaa musuqmaasuqu meeshii ugu sareysay oo dalkii ugu musuqmaasuq sareeyay waa Soomaaliya. magacyadaas oo dhan iyo qaab darooyinkaas oo dhan ummadeena iyo dalkeena iyo dadkeenuba ma mudna, mana istaahilaan. dad yar oo shakhsiyaad ah oo naga tirsan oo ayagu ku takrifalay awooddii dowladnimada ee la siiyey ama amaanadii dayacay inay magac xumi u soo jiidaana suurtagal ma aha. waxaan u istaagaynaa ilaahay idankiis inaan hor istaagno in waxa yarkaa aan haysanahay lagu takrifalaa. haddii aan halkaas uga baxo warbixintii koobnayd ee maxaan ku yiraahdaayay dowladda waxqabadkeedii iyo mustaqbalka sidaan u arkayno, waxaan doonayaa inaan usoo noqdo qodob kaloo aada iyo aada muhiim u ah. waa qodobka maamulka dowladnimo dalka sida loogu baahinayo. dalkeenna maamulkiisa dowladnimo dowladda dhexe sooma dhaafo, weliba dowladda dhexe inta ugu sarreysa xataa sooma dhaafo. markaan waxaan u taagannahay inaan maamulka dowladnimada hoos u dejinno oo meelaha ugu sarreeya laga wado, xukuumadda iyo dowladda meelaheeda hoose la gaarsiiyo ilaa deegaanada dhammaan dadka Soomaaliyeed ku nool ay dareemaan dowladda inay la joogto. dowladduna dadku waxay kula joogi kartaa inay dhisto maamuladii deegaanada iyo gobollada iyo degmooyinka. waxaan muhiimad weyn saaraynaa in maamuladaas deegaanada ay dhismaan, dowladduna ay qaadato doorkeeda. dastuurkeenna wuxuu dowladda waajibkeeda koowaad ka dhigayaa dalkan inay federaal ka dhigto. dalka inay federaal ka dhigto macnihiisuna waxa waaye waa in maamul uu dalka ka jiraa, maamul meesha ugu hooseyso ilaa meesha dhexe ilaa halkan ugu sarreyso oo dowladda dhexe ah. doorka ugu weyn oo dowladda Soomaaliyeed ama dowladda dhexe ay ciyaari doonto wuxuu yahay inay fududeyso maamuladaasi inay sameysmaan. maamulada inay sameysmaanna waxay u baahan yihiin dhowr arrimood oo aan kala dhic lahayn ama aan kala hari karin. waxaa ugu horeeyo sharciyaddii. dalkeenu federaal ma ahaan jirin, dal oo dowlad dhexe oo xoog badan oo dalkao dhan ay ka talisa ay leedahay ah. shuruucda dalkeena ka jiro dhanna waxay ka turjumaan nidaamkaas xukunka ee dalka soo jiri jiray. maadaama hadda aan doonayno in nidaam xukun oo cusub aan galno ama qaab cusub oo xukun dalka laga dhaqan geliyo, waxay u baahan yihiin qaabkaas cusub in loo sameeyo shuruucdii uu ku dhaqan geli lahaa. tallaabo kasta oo dowlad dhisidda iyo xukun samaynta loo qaado oo aan loo sameynin shuruucdii saxda ahayd ee sharciga ahayd waxay noqonaysaa waxaan sharciyad ku dhisnayn. waxaan sharciyad ku dhisnaynna ma waaraan, ma daahaan, wayna dumaan. waayo aragnimadii 20 sano aan soo dhaafnay ka dhaxalna waxaa ka mid ah in la dhiso maamulo aan sharciyad ay ku dhisan yihiin aanay jirin. waana taas midda keeni jirtay maamuladaasi inay si degdega u fashilmaan oo ay dumaan. dowladda dhexe ee aan anigu madaxweynaha ka ahay waxay shaqadeeda koowaad u istaagi doontaa sharciyadaas inay samayso, oo maamul kasta oo dalka ka jira, mid heer degmo, mid heer gobol, mid heer dowlad goboleed iyo midka dowladda dhexe intaba inay ku saleysnaadaan sharciyad iyo qawaaniin dadka Soomaaliyeed ay wada aqoonsan yihiin, wadana aqbalsan yihiin. inta muddadaas marka la gaarayo ma ahaan karno maamul la'aan. deegaanadana maamul la'aan ma ahaan karaan, degmooyinka gobolladana ma ahaan karaan, dowlad goboleedyaduna ma ahaan karaan. waxaan dhaqsi u dardar gelin doonaa horta shuruucda in la sameeyo iyo system ama qaab ku meel gaar ah oo inta shuruucdaasi dalka ay ka dhaqan galayso oo dadka Soomaaliyeed ay u helayaan fursad in ay soo doortaan, inay marka hore soo magacaawdaan
dadkii ayaga wakiil u noqon lahaa dadkii ayaga xukumi lahaa iyo sidii lagu xukumi lahaa intaba maamulada kumeel gaarka ah waxay u diyaarin doonaan saaxada iyo deegaanada sidii loo sameyn lahaa maamuladii deegaanada iyo kuwii gobolada iyo kuwii dowlad goboleedyada intaba si uu dalkeenu si dowladda Soomaaliya ay u xaqiijiso mandate-keedii ahaa dalkii oo federaal ah in la gaaro maalin maalmaha kamid ah oo mustaqbalka ah la yiraahdo arintaasi aad iyo aad uma sahlana waa hawl aad iyo aad u xasaasi badan dalkeenu wali dib u heshiisiintii iyo kalsoonidii shacabka ka dhaxaysay sooma wada noqonin taasi waxay keenaysaa in shakiyo badan la kala qaado dowladda iyo ujeedooyinkeeda in si khalad loo turjumo dadku inay cabsi badan qabaan oo ay ka cabsadaan waxa soo socda iyo mustaqbalka waxa soo dhan waxa keenaya duruufaha dalkeena iyo dadkeenu ay ku sugan yihiin ee ka dambeysay xilliyada dagaalada sokeeye walaalayaal mudanayaal iyo marweyn muwaadiniinta Soomaaliyeed ee sharafta leh meel kasta caalamka ka jooga waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dowladda Soomaaliya ujeeddo ay leedahay oo aan ahayn dalka inay dowladnimo ka dhaqan gasho dowladnimadaas oo ku imaanaysa si nabadeed dowladnimadaas oo ku imaanaysa rabitaanka dadka ee aan ahayn mid lagu khasbayo ama lagu lagu riixayo baryahan dambe sida media aad ka maqlayseen waxaa suuqa aad iyo aad looga hadlaa arinta ku saabsan gobolada Jubbooyinka waxay ka tirsan yihiin Jamhuuriyadda Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya 3 gobol oo ka tirsan waay sida hadda loo qaabeeyay oo ah Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo gobolka Gadow waxay noola mid yihiin jamhuuriyadda inteeda kale dhulalka iyo goboladu duruufaha ay ku kala sugan yihiin ee maanta la joogo way kala duwan yihiin wixii ay soo mareen 20 sano ee la soo dhaafayna way kala duwan yihiin waxaan qiraynaa gobolada Jubbooyinka inay ahaayeen dhul ay la soo diristay 20 sano la soo dhaafay duruufo adag iyo dhib badan oo colaaduna ay aad iyo aad ugu xanuun badneed uguna dhib badneed deegaanadaas waa dhulka Soomaaliya ugu barwaaqaysan waa dhulka Soomaaliya dadka degan ay ugu nabad jecel yihiin inta aan anigu ka garanayo oo cilmi baaris ku soo maray dhulkaas oo dhan dadka iyo qabaa'ilka iyo deegaanadana mid ula soo fariistay dib u heshiisiin badanna kala soo qayb qaatay dadka deegaanka mar ay khilaafyo yar oo dhexdooda ay dhaceen waxaan garanayaa dadka deegaankaas deganay ayagu inay colaadda isu qabaan ay aad iyo aad u yartahay waxaan garanayaa dadka deegaankaas deganay inaan isku duulin waligood laakiin colaado meelo kale laga soo abaabulo ama deegaano kale laga soo abaabulo inta badan in ay meesha ka dhici jireen waxaan garanayaa deegaankaasi hogaamiyaashiisu inaanay ahayn kuwa horumariya colaadda deegaanka ka jirta laakiin nasiib darro si kale un ay colaadda u dhici jirtay markaan waxaan rabnaa colaaddaasi inaanay sidii hore u dhicin dadka deegaankaas degan waxaan u rabnaa nabad dowladda Soomaaliya iyo xafiiska madaxweynaha maamul sameynta dalka loo sameynayo ama ay dadka loo fududeynayo inay sameystaan maamulo waxay ku salaysan tahay 3 mabda saddexdaas mabda waa muhiim waxa saddexdaas mabda ka soo hara waa arrin farsamo laga doodi karo maxaan ku raada dhinac loo riixi karo dhinac kalena loo riixi karo mabda koobaad wuxuu yahay dadka deegaanada in la awood la siiyo ay aayahooda iyo mustaqbalkooda ayagu ku go'aamin karaan oo cod ku yeelan karaan oo dadka ay ayagu xukumaya oo hogaaminaya marka horena ay soo xulan karaan marka dambana ay dooran karaan fursadaas in la siiyo dadka deegaanada ayaan rabnaa qodobka labaad wuxuu yahay colaadii inay dib ugu soo noqoto deegaanadaas ma doonin dowladda Soomaaliya waxay ka hortagaysaa wax kasta oo keenaya in deegaanada Jamhuuriyadda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan kuwa hadda aan ka hadlayna ee Jubbooyinka wax colaada inay ka dhacaan ama dib ugu soo noqdaan waan ka soo horjeednaa mana taageerayno waanan ka hortagaynaa intii awoodeena in deegaanadaasi dadka jooga colaada ay ku soo noqoto oo dib u qax oo ka dhaco oo maxaan ku raadayay mushkiladii colaada ay dib ugu soo noqdaan qodobka saddexaad ee mabaadida waxa waaye maamul sameynta dalka oo dhan guud ahaan sida dowladda Soomaaliya ay mas'uul uga tahay maamul sameynta Jubbooyinkana dowladda Soomaaliya ka mas'uula dowladda Soomaaliya ka mas'uula markaan leenahay macnaheedu ma aha xamaraan intaan fariistaan dad u magacaabayna ma aha macnaheedu laakiin dowladdu waxay mas'uul ka tahay wadada iyo qaabka iyo habka
ay dadka deegaanadaasi degan ku samaysanayaan maamulada dowladuna way fududeynaysaa waxay siinaysaa sharciyadii maamuladaas waxay siinaysaa gargaarka ama kaalmada muxuu ahaay farsamo ee ay u baahan yihiin deegaankaas waxay dowladdu garab istaagaysaa maamulada cusub ee deegaanadaas ka dhalan doono ilaa ay ka awoodeystaan oo ayagu ay isaga filnaadaan saddexdaas qodob marka laga yimaado inta ka soo hartay yaa degme hebel xukumayo yaa gobol hebel xukumayo yaa dowlad goboleed hebel xukumaya waxaa iskale awooddaas dadweynaha deegaanada degan ma aha kuwa jubbooyinka oo kaliya ee waa kuwa jamhuuriyadda oo dhan waxaan rabnaa mowqifka dowladda sidaasoo waadix u yahay dadka in been loo sheegahay ma habboona in fidno laga taliya ma habboona in maxaanku irahdaye abaabullo aan macno keenaynin oo waddadii aan kusoo dhunnay 20 sano hore ah dib loogu noqdo macno ma samaynayso in dadka qaarkiis ay wilfiyaan maradii colaadda maradii reeraynta maradii qabiilka maradii kala qaybinta dadka ku nool gobolladii iyo deegaanada maanta waxba ma tarayso macno ma samaynayso waa waddo aan naqaano horey aan usoo aragnay waayo aragnimadeeda aan leenahay oo aan aad iyo aad inaan ka leexan aan u jecelnahay waxa aan ku dadaalayna aan rabna inaan samayno waa isbeddel waa dhaqan dowladnimo aan jiri jirin isbeddel kastana xanuunkiisa uu leeyahay isbeddel kastana adkaysigiisa iyo muxuu ahay cadaadintiisa uu leeyahay ma doonayno dadka Soomaaliyeed in aan cadaadino ma doonayno dadka Soomaaliyeed wax aanay rabin inaan ku qasabno laakiin mas'uuliyadii naloo dhiibay wixii naloo doortay oo ahayday inaan dhowrayno danta dalka iyo dadka iyo diinta ayaan ku taaganahay waxa aan ku hadaaqayno ama ku hadlayno ama aan doonayno in la sameeyaa waa waxa aan u aragno inay ku jirto danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee jubbooyinka deganna waxay la mid yihiin dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya inteeda kala degan sida aan kuwa walba u jecelnahay ayaguna u jecelnahay waxaan aad iyo aad uga rabnaa mar kale inaan ku celiyo qodobkan intaanan ka gudbin walaalayaal dadka jubbooyinka jooga ama degan deegaanada haddii la idin yiri dowladda qas idin wada qas idin ma wadno haddii la idin yiri dowladda inay wax idinku khasabto oo dusha wax idinka keento rabto ma rabno annaga ee waxaan rabnaa wax adinku aad leedihiin oo biri aad ilaashanaysaan oo biri aad adinku xoolihiina ku bixinaysaan laakiin wax dibadda laga soo import gareey iyo wax dad meel dhexe isugu tagay ay sameeyeen jubbooyinka saddexda gobol hadda gaar u magacaabay degmooyinkiisa in badan oo kamid ah weli ma madax banaana weli gobolka qaarkood ayaa dhamaantood saddexda gobol kamid ah weli aan xor ahayn oon dhaqdhaqaaqaynin oo maxaan ku raacaan ka madax banaanayn cabsidii iyo colaadii weli kuwa qaarkood ayaa weli maxaan ku raadaay aan sidii la rabay deganaanshahooda aan ahayn dowladdu waxay u taagan tahay mar walba kuwa hadda madax banaano dadkoodu ay tashan karaan inay fursad siiso ay ku tashadaan intaas ay tashanayaan oo maamulka samaysanayaan dowladdu waxay rabtaa kaliya inayna u fududeyso sidii waxaas ay ku imaan lahayd wuxuu cirkana kama soo dhici karaan mana sugayna meel kale in looga soo minguuriyo dadku waa inay samaystaan si dadku ay samaystaan waa in fursad loo siiyo inay samaystaan walaalayaal dowladda Soomaaliya mowqifkeeda waa intaas degmadu inay maamulkeeda lahaato gobolku inuu maamulkiisa lahaado gobolladii isgarto afgartay isku tagaan inay dowlad goboleedkooda yeeshaan dowlad goboleedyadaasina ay jamhuuriyadda Soomaaliya kuwa ay ku taagan tahay ay noqoto waa intaas inta aan doonayno waana waajibkii sharci aad noo doorateen oo aad nasaarteen oo aan doonayno inaan fulino haddii Ilaahay idmo marka waxaan doonayaa warka iyo maxaan ku raadaay in xumtashiilka warkoodu inuu meeshaas ku haro ayaan maxaan ku raadaay yaan doonayaa waxaan rabaa guud ahaan marka dadka Soomaaliyeed mar kale inaan u soo noqdon iraado haddii aan doonayno Soomaaliyeed inaan dowlad ka hana qaado dalkeena aan curino waa inaan bixinaa qiimi waa inaan bixinaa dowladdaasi aan rabno iyo waxaas fiican aan raadinayno waa inaan qiimi bixinaa qiimigaas maxaa ka mid ah qabka qabiilka inaan meel iska dhigno suurtagal ma aha laba waxyaaboodna iskuma heli karno qabka qabiilka inaan haysano oo qabiil walba qabkiisii uu qabo iyo qab qaran inaan dhisno maanta dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan xasuusiyo waxaan ku noolnahay meel
qabka qabiilka uu nagala weyn yahay qabkii qaranka waxaan ka cararnaa Soomaalinimada waxaan raadsanaa baasaboorro ajnabi ah meelaha qaarkood waxaan inkirnaa inaan Soomaali nahay sababtoo ah waxay tahay qabkeennii ayaa maqan qabkii Soomaalina ayaa naga jabay oo naga maqan inaan qabkaas soo celino oo aan dhisno iyo inaan kii qabiilka haysanana iskuma keeni karno waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed qabka qabiilka aan dhigno si aan qab qaran aan u yeelano taas maxaa daliil u ah inaan qabkii qabiilka dhigayno midka xun yaan xumaan qalooca lagu taageerin ninka dadka dilaya dadka inuu dilayaan lagu taageerin ninka hantida dawladda dhacaya ee beesada xadaya yaan lagu taageerin inuu beesada xado halka dhulka dawladda boobayo oo danta guud wixii meesha lagu qaban lahaa iskoolaadka laga dhisi lahaa biri isbitaalada laga dhisi lahaa dadweynuhu meelaha ay xafiisyada loogu shaqeeyo laga dhisi lahaa kuwa boobaya yaan la taageerin yaanu noqonin qabiil dawladdu markay tiraaho waa qaldan yahay ninkan waa la qabanaya waxaan rabaa si caama dadka Soomaaliyeed inaan ugu sheego dadka amni darrada wadana yaan la taageerin oo yaanu noqonin reer hebel markuu qalad sameeyo dawladdu ama ciidanka amniga ay soo qabtaan yaanu noqonin reer hebel ee nin dambi galay ha noqdo la qoorgoy maayo la ciqaabi maayo la dili maayo sharciga la geynayaa wuxuu sharci qabaa la marsiinayaa haddii waxba lagu waayana waa la soo deynayaa sida marar badan dhacday sidaan hadda u sheegayay hay-adaheena amniga iyo hay-adaheena cadaaladda wax badan baa ka dhiman weli inay si fiican u hana qaadaan laakiin waxaan rabaa inaan dadka u caddeeyo ma helayno mana gaarayno maalin ay yihiin kulligood kuwa sax ah oo waxa saxa sameeyo haddaanan ogolaanin maanta inay intay samaysmaan ay khaldamaan si ay khaladkooda biri u saxaan ma helayno booliis 100% sax ah ma helayno maxkamado 100% sax ah laakiin waxaa muhiim ah inaan curino daadihino khaladka maalin walba ay galayaan aan ka saxno si biri ay u noqdaan kuwa hana qaada oo waajibaadkii dalku u igmaday ka soo baxa way dhici kartaa in khaladaad ay sameeyaan ciidamada amniga way dhici kartaa waana baqiraya khalal inuu ka jiro dhinaceena cadaaladda iyo amniga intaba laakiin taas macnaheedu maaha shaqo ma qaban karna maaha ma sax ma gaarayno haddaanan qaldamin maanta oo aanan biri isisii sixin oo aan biri dambana isisii sixin waxaan dadka Soomaaliyeed ka codsanayaa inay dulqaad yar muujiyaan inta aan sixidda iyo toosinta hay-adahaas oo dhan aan ku jirno waana sababta aan muhiimadda koobaad u siinay ammaanka cadaaladda dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dhisidda hay-adaha maamulka maaliyadda dawladda laakiin inta aan wadno waxaasi waxaan rabnaa dadku in ay dulqaad ka muujiyaan arrintaas ninka qofka ciidamada amniga soo qabtaan yaan la daba kicin ha lagu daba kaco ciidamada amniga markay xad dhaaf sameynayaan dadku xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan xaq bay u leeyihiin inay inta midoobaan ay ka hor yimaadaan si nabadgelyo ah marna qoriga waxba nooma saxayo haddiina lagu xadgudbo xataa haddii jawaabta aan ka dhigin inaan qoryo qaadano waan ka sii darnay waan sii xumayna xaaladda ee maan hagaajin laakiin dadku inay codkooda si nabada u muujiyaan hay-adaha kale jira inay u dacwoodaan madaxda inay warka gaarsiiyaan ayay leeyihiin dowladeeduna ilaahay idankiis mid dadku u furan dadkana u dhow oo dhageysato ayay noqon doontaa haddii alla yidhaah dowladda Soomaaliyeed aan anugu madaxda ka ah waxaa kaloo caadi noo noqotay jamhuuriyadoo dhan gaar ahaan magaalada Muqdisho caasimadda ah dhulka dowladda in la qaato dad inay dhistaan kuwa inay maxaan ku iraahdaa si kale isaga isticmaalaan waxaan rabaa dadka inaan u sheego dhul kasta oo ay dowladdu lahayd 26 January 1991 dowladda leh ku celina dhul kasta oo dhul dowladeed ahaa 26 January 1991 waa dhul dowladeed hadday daar kaaga dhisan tahay iyo hadduu bannaan yahayba dadka Soomaaliyeed inay deganaadaan oo dhulka dowladda ay isticmaalaan oo aanu bannaanaanin dib kuma qabno dowladdu dib kuma qabto dhulka in laga faa'iideysto oo la isticmaalo waa sax laakiin qofna yaanu isisiinin oo aanu u qaadanin hanti gaar ah uu leeyahay yaanu u qaadanin sharci kama samaysmo sharci kama ansaxo
dukumiinti uma samaysmaan dhulka dowladda ay lahayd 9kii iyo 1 bishii January 26keedii wixii ka horeeyay ee dowladnimadu intay jirtay khaldamay ayaan rabnaa inaan saxno meesha laga bilaabayo saxitaanka waa 26 January 1999 waan garanayaa waanan fahmi karaa dad badan inay arintaasi aad iyo aad u dhibayso dad badan inay ka soo horjeesan doonaan laakiin walaalayaal runtu ha qaraaraatee haddii aanan isu sheegi karin dowladnimana ma dhisi karno dalkan iyo dadkan iyo diintiisana ma badbaadin karno waxaan doonaynaa marka in aanay cudur daaran noqonin berri haddii alla yiraahdo hanti baa iga gashay waan dhisay waan dayactiray waan maxaan ku iraahdaa waxay haddaad dhistay dayactirtay waad isticmaashay intaad isticmaashay hadda iyo inta lagaaga imaanayo aad isticmaali doonto ilaa maanta saakay dhulkii lama soo intaas ayaa muxuu ahay kaaga filan inaad muxuu ahay khayr badan aad kala kulanto intaas kadib walaalayaal xaaladda dalka uu ku sugan yahay guud ahaan way fiican tahay roobab fiican ayaa sanadkan noo da'ay ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa dalka intiisa badan roobab fiican ayaa ka da'ay waa mahad ilaahay xaaladda amniga dalku way soo horumaraysaa meeshii la rabay weli ma gaarsiisna laakiin way soo horumaraysaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Amisom waxay sii gaarayaan horumar dhulal cusub ayay sii gaarayaan oo ay soo gelinayaan gacanta dawladda dhulalkaasina dawladdu waxay ku mashquulsan tahay maamul sida ay u yeelan lahaayeen oo khaasatan lala sugayay inta ay xukuumaddu ka howlgalayso xukuumadii waa la ansixiyay shalay mahadaha ka gaarta baarlamaanka qaranka Soomaaliyeed berrina haddii alla yiraahdo waa la dhaarinayaa kadibna shaqo ayay u taagan tahay iyo barnaamijyadii ay ku shaqaynaysay oo dadweynaha u soo bandhigtay toos xukuumadda waxaan rabnaa in habka ay ku shaqaynaysay barnaamijyada ay ku shaqaynayso inay ahaadaan kuwa u furan dadweynaha ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo public domain oo qof kasta meel kasta uu ka heli doono baarlamaanka Soomaaliyeedna oo hadda qaban qaaba isdhisid asiga dhismihiisii xeeroosaadkiisii ku jiraahay wuxuu howlaha ugu horeeya ay noqon doonaan shuruucda muhiimka ah iyo qawaaniinta sugaysa in ay muxuu ahay dhaqan inay ansixiyaan si ay maamul dhisidii dalkana ay u fududaato dhisidda hay'adaha dawladda intaan weli aan sharciyadoodii aanay cadeyn ay u cadaato intaas kadib cilaaqaadkeena caalamiga ah aad iyo aad ayuu soo saramaray dawladaha adduunka intii aan gaarnay waxaan gaarsiinay fariinta ah bilowga cusub ee Soomaaliya waxaan ku jirnaa bilow cusub wax walba waxaan doonaynaa inaan sida ay ahaayeen si ka duwan oo ka haboon u sameeyno wixii sidii ay ahaayeen ugu anfacana sidoodan u haysanaynaa mar kale dadweynaha Soomaaliyeed meel kasto ay caalamka ka joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaan ugu baaqayaa in ay nabadda qaataan in ay iska iloobaan iskana dhaafaan hadallada dacaayadaha war xumo tashiilka aan waxba soo kordhinaynin inay wax naga hadlayaan ma ogiin haddii aan hadli tagno aan ku hadalno hadal suuban oo ummadda Soomaaliyeed wax u tarayo sida uu xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahay aan aamusno oo yaanan waxba dhihin haddii aan wax leenahayna wax khayr ummadda ugu jiro aan dhahno dadka Soomaaliyeed ayaan mas'uul u nahay dadka Soomaaliyeedna waa u dhaaranay dantooda iyo maxaan ku raadayay sharaftooda iyo hibadooda iyo karaamadooda inaan soo celino aad iyo aad ayaan kalsooni badan u qabnaa inaan soo celi karno dawladnimadii inaan soo celi karno haybadii iyo sharaftii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd inaan soo celi karno qabkii dalkan uu lahay iyo dadkiisa oo aan waqti aan aad u fogeyn aan gaari karno inaan ku faano anigu Soomaaliyan ah waxaan kala rabaa ugu dambeyntii warkaygu inaan ku soo gaaro Soomaalida iskale tala annaga inoo taala ajnabiga iyo saaxiibadu wayna kaalmeyn karaan waxba nooma sameyn karaan nabadna nooma keeni karaan dawladnimana nooma keeni karaan dalkana nooma dhisi karaan haddii aanay annaga naga imaan markaan annagu naga timaadan is afgaranana waxay noo gali karaan doorkooda kaalmada wax weyn oo noo gala yaanan rajo lagu xirin loona sii hanqal taagin in ay dibadda wax nooga imaanayaan aan is eegno annaga hoos aan isu eegno barbaradeena aan isu eegno walaalaha ku garab jooga eeg u ogolaaw waxa uu ka doonayo walaalka si uu kuugu ogolaado
waxa aad ka doonaysid adiguna. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar su'aalo la weydiiyay waxa uu xusay in aysan jirin wax faragelin ah ee dawladda Soomaaliya ay og tahay asagoo dhanka kale ku amaanay urur goboleedka IGAD inuu kaalin fiican ka geysto sida dadka Soomaaliyeed ay wax weyn u qabsan lahaayeen isla markaana gobolada dalka iyo guud ahaan dalkaba loo dhisi lahaa. maya anagu faragelin ma aragno, faragelin iyo si xun u dhaqaaqid iyo hagardaamo oo dibadda looga haayo ma aragno. waxaan qabnaa markaan anagu isku toosanahay faragelintu ma suurta galeysaba. marka waxaa jirta urur goboleedka aan ka tirsanahay IGAD ayaa dawladda Soomaaliya wuxuu ka saacidayaa sidii dalka maamulada loogu sameyn lahaa ama dalka maamulo u yeelan lahaa saacidaad farsamo oo dawladdu wixii ay codsatay ah. anigu intaan xafiiska fadhiyayna wixii aan codsanay iyo qaabkii aan u codsanayba urur goboleedka IGAD wuu nagu saaciday ilaa iyo haddana wax faragelin ah ama maxaan ku raadayay farxumeyn ah ama maxaan ku raadayay aan ka dareemaynaay ma jirto. waanan ku kalsoonahay mustaqbalkana doorka IGAD ay leedahay oo ah inay dawladda Soomaaliya ku kaalmayso sidii maamulo ay uga dhaqan gali lahaayeen, dawladduna ay u fududeyn lahayd dhaqan gelintaas maamulada ee gobolada. doorkaas ayaa dawladda IGAD leedahay. sidoo kale midowga Yurub iyo maxaan ku raadayay dawladaha kale ee muxuu ah adduunyada oo qayb badan oo kamid ah waxay qayb xoog la ka qaataan maamul sameyntaas dalalka deriska. marka ma arko anigu faragelin, laakiin waxaan arkaa dalku inuu dego oo dawlad aan yeelano oo nalagu kaalmaynayo. laakiin waa markaan annaga dhexdeena aan is aamino is qaadano. haddaan annagu iska soo horjeesano cid walba talaabadeeda faragelin iyo xumayna loo arkaya, laana midka wixii uu raba waayay ayaa ku tilmaami doona kuwa dibadda ka imaanaya inay laakiin haddii aanan anagu isdiidanayn dee doorka ajnabiga kaalmo noqonaya. wixii kaalmo san aan noo ahayna cod midaysan aan ku dhigi karnaa sidii aan rabnay ma ahan noo kaadiya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay horumarka dadka shacabka ee Soomaaliyeed u baahan yihiin iyo dadka degan dhulka dawladda ama xarumaha dawladdu ay leedahay ee shacabka ah. mar arintaas ka jawaabayna waxa uu yiri laba waxyaabood aan rabnaa inaan kala saarno. dawladdu mar walba waxay u taagan tahay danta dadka. dhul marka dawladdu ay dadka laga saarayana waxa looga saarayaa danta dadka. xanuun iyo culays way leedahay qoyska iyo qofka Soomaaligaaba in maxaan ku raadayay dhibaato uu la kulmo ama wixii uu rabo uu waayo. laakiin marka ugu horeyso koobaad waxaan ka shaqaynaynaa danta caamka ah. taas dhexdeeda ayaan waxaa imaanaya markaas danta gaarka in la helo. dadka Soomaaliyeedna dawladdu mar badan ay barakacsanaayeen. ujeedada dawladdu maaha barakac kale inay abuurto maaha. dadku si ay u noolaadaan, meelo ay degaan, waqti ay ku degaan, muxuu ahaay siday u degi lahayn oo lagu kaalmeeyo, waxaasoo dhan dawladdu way samayn doontaa. mushkiladeennana ma aha dhul meel ku yiilay oo dad Soomaaliyeed ku nool yihiin. maalin walba mitirkii loo baahdo unbaa dadka yaa la weydiisan doonaa inay baneeyaan oo si loogu adeego dadka. laakiin midkaas aan maanta loo baahnayn dadka Soomaaliyeed inay sii deganaadaan dawladdu waxay u tahay sharaf iyo heybad. laakiin mushkiladda waxaan ka hadlaynaa waxa waaye qofka cad dhul ah oo dawladdu leedahay u qaadanayo hanti gaar ahaaneed u qaadanayo, duruuf aanay ku kalifin, dhaqaale xoog la haysto, daara ka dhisayo, business kale ama ganacsi kale ka samaysanayo, amaba dhaxaltooyo asagu shakhsi uu leeyahay ka dhiganayo waayo qofkaan ka hadlaynaa. laakiin dadka masaakiinta soo barakacay dhulalka dawladda ay leedahay iyo xarumihii dawladda degan, kuwaasi waa mas'uuliyadda koobaad ee dawladdu leedahay tahay inay meerayso, meel u daydo, ama meeshii ay ka soo qaxeen duruufo ku celiyo dawladdu ay abuurto, ama haddii xataa muddadaas ka hor loo baahdana meel kale. mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa wax laga weydiiyay arrimo la xiriira xagga musuqmaasuqa sida ay dawladdu ula dagaalamayso. arrintaas arrin oo sinaba aan raalli uga nahay maaha. tallaabooyin bilaaw oo ilaa hadda waan qaadnay, haddana kuwo kaloo waaweyn ayaa noo soo socdo. waana sababta dawladdu ay uga dhigatay meel ay bartilmaameedsanayso hay-adaha maamulka maaliyadda dawladda in la saxo, la hagaajiyo, iyo shuruucdii ilaalinaysay wixii jirana dib boorka looga jafo, wixii dhimanna in hadda la sameeyo. laakiin marna ma ogolaan doono, mana arkayno si dawlad Soomaaliyeed ay ku dhaqan gali karto
duruufaha musuqmaasuqa ee dalkeena ka jira haddii aan wax laga bedelin. musuqmaasuqaasoo labala kala duwan ku jira, dowladda dhexdeeda ka jira, shacabka dhexdiisana ka jira. laakiin waxaan noo ballana dhammaanteen inaan u fahamno musuqmaasuqu inuu ka mid yahay tiirarka ama caqabadaha ugu waaweyn ee dowladnimada naga hortaagan. marka dowladnimo haddaan rabno waxa aan inaan ka hortagno uu ka mid yahay, ugu horeeyo inaan ka hortagno ay tahay ayaa musuqmaasuqa uu ka mid yahay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale warbaahintu waxa ay wax ka weydiisay sida dowladdu ay gobolada Jubbooyinka ugu dhuunduleesho iyo sida dowladda Soomaaliya ay kooxihii maleeshiyada Al-Qaacidada Soomaaliya ay uga reesay gacan ka haynta deegaanadaasi. maro arrimahaasi ka jawaabayana waxa uu yiri mid horta waa kaaga duwanahay oo dadweynaha Jubbooyinka degan walaac kama ayan muujin deegaanadaasi markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada xulufada iyo ciidamada Amisom markay deegaanadaasi tageen oo ay la wareegeen walwal iyo walaac dadku kama muujina, dadku farxad iyo waxay ku soo dhaweeyeen reen. ciidanka Soomaaliyeed ee meeshaasi shaqada ka qabtayna shaqo aad iyo aad u weyn ay qabteen, waxaanay mudan yihiin ammaan. waxay socod ka soo bilaabeen xuduudda ilaa ay magaalada Kismaayo ka yimaadaan, dagaal ay ku soo jireen, way soo dhinteen, way soo dhaawacmeen.